السلام عليكم مدحوينها جمهورية فدرالك صوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو ayaa maanta warqadaha aqoonsiga danjiranimo ka gudoomay safiirada cusub ee dalalka Nigeria iyo Indonesia oo kamid ah dalalka iskaashi iyo xiriir qoto dheer oo taariikhi ah uu inagala dhaxeeyo Nigeria mudane Yusuf Yunusa iyo Indonesia mudane Dr. Mohamed Heri Sriborin madaxweynaha jamhuuriyadda iyo danjirayaasha cusub ayaa ugu horeynba ka wada hadlay sidii kor loogu qaadi lahaa xiriirka iskaashi iyo kan diblomaasiyadeed ee laba geesoodka ah iyo ahamiyadda caalamiga ah ee soo kordhaysa taas oo mudnaanta siinaysa sidii la isaga kaashan lahaa dhinacyada amniga dhaqaalaha iyo horumarinta diblomaasiyadda dhankooda danjirayaasha cusub ee ku soo biiray safiirada ka hawlgala dalkeena iyo diblomaasiyiinta ayaa ugu horeynba ka mahad celiyay soo dhaweynta diiran ee ay kala kulmeen dawladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed iyaga oo bogaadiyay horumarka ay ku tallaabsatay dawladdu gaar ahaan dhinacyada horumarka iyo dib-u-habaynaha lagu sameeyay dhinaca amniga iyo dhaqaalaha la dagaalanka musuqmaasuqa iyo argagixisada iyo dib u heshiisiinta guud ahaan iyo horumarka dalka danjirayaasha cusub ayaa sidoo kale soo bandhigay qorshayaashooda ay ku horumarinayaan xiriirka iskaashi iyo kan diblomaasiyadeed ee dalalkooda kala dhaxeeya Soomaaliya ugu dambeynna madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa ugu hambaliyay danjirayaasha cusub ee dalalka Nigeria iyo Indonesia xilalkan cusub ee loo igmaday isagoo u ballan qaaday in dawladda federaalka ee Soomaaliya ay ku garab istaagi doonto ahmiyadda loo igmaday ee diblomaasiyadeed waad mahadsantihiin